قبيل أيو أصعبتمايا من قبيل أيو هلينيا وجي سايك موقتا ديدي كدا بالأركة maalkaaga la soo weeraro oo sharaftaada la soo weeraro أهدي والله حقيق نكاس أيال ربا نكالت إلا البردقو نكال أركتان قداش إذا كم وقضو أيال ربا إلا البردقو إنو يحي حلبان أطرتما كرسي سحدا بل أساقا إني تصيو وانين قيل قدوما إلا نكا ما دام أكو مشغول سنيا إنو قيل قدوما نينا أكو مشغول سنيا أمني قدد كيسينو سوغو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديك قاليقا وقت كستا إيكو تاي وناكسن أو وحن soo dhawaada waxaad ku soo dhawaataan video kale oo aad u xiiso badan intaana videogan guda galin waxaan ka codsanayaa fadlan page-kan follow leh oo la garay videogan siina share garay oo gaarsi walalaga qaaliga ah waxaan inta u fadhiyaa oo aan rabaa inaan ka hadlo xaqiiqada saxda ee jirto waxaan page-kan ku soo gudbin doonaa xaqiiqooyinka saxda ah sidoo kale waxa iga codsadeen dadka igu xiran page-kan ku xiran waxa iga soo codsadeen inaan ka soo hadlo arinka saxda ee jirta maantay oo ah dad isla barbar dhigayo habeen iyo maalin oo cad dad baa maanta waxay ku raadinayaan inay ku filter gareeyaan habeen mugdi ah oo dayax jiro ayay waxay ku qaldayaan maalin cad balse waxaan rabaa inaan filterkaas kala saaro oo aan xaqiiqada saxda kugu soo gudbiyo dawadayga qaaliga ah fadlan hadda nagu cusubtaa page-kan follow leh waxaan guda gali doonaa oo aan rabaa inaan ka hadlo oo xaqiiqada saxda waxay tahay Master Ali Yare علي عبد الله علي ورديري أنا waxaan filayaa inuu saas magaciisa saxda yahay sidoo kale waxaan u aqaana Ali Yare Ali sidoo kale xildhibaankii hore ee golaha baarlamaanka ee la yiraahdo Mahad Salaad waxaan rabnaa inaan isbarbar dhigno inkastoo dadka isku qaldayaan ee saaid isku qaldayaan xaaladda saxda ee jirto balse aniga waxaan rabaa inaan kuu sheego in xaaladan ay ka duwan tahay dadka wixii aaminsan yihiin dadku waxay isbarbar dhigayaan laba nin aan isku dhigmin ayay rabaa inay isku keenaan balse aniga waxaan rabaa inaan kuu muujiyo xaqiiqada saxda ee jirto waliba xataa aan kuu hayo cadeemo u ah fiidiyoyadooda iyo wax walba ogow recording ay leeyihiin maanta fiidiyoo hadaan duubayo oo arkaysin aan idin soo gudbinayo waa recording way wuu duuban yahay meel ayuu galay waxaad ogaataa marka wax kasto aan ka hadlo wanaaga iyo wax kasto dhibaato aan ka hadlo Britol ayaa lagu soo tusaale qaadan doonaa balse nin kasta kama fakiro waxa la isla barbar dhigayaa sidoo kale nin dalkiisa iyo gobolka oo degan yahay ama dadka uu ka soo jeedo rabo inuu badbaadiyo horo socod u yeelo ee nin rabo inuu maanta dib u celiyo oo xaaladii aragtan aan ka soo gudubnay dib u celiyo rabo hal tusaale ayaan rabaa inaan ka soo qaato arinka saxda ee jirto waxayna ay tahay xilligii ugu dambeysay ee dhibaatadii dhex saxda dhicisay dadkani waxa ay suubinayeen ayaan rabaa inaan ku tuso xaqiiqada saxda ee jirto ayaan rabaa inaan ku cadeeyo maanta tan ila fiirso ila arag waxaan ku horeey doonaa Ali Yare Ali ila daawo bal fiidiyowgii saxda ah ee jirto bismillaahir rahmaanir rahiim sida aad ka warqabtaan waxaan markasta si joogto ah idin la wadaagnaa xaaladda amni ee gobolka Banaadir walaalayaal sida ka warqabtaan saacadihii ugu dambeeyay waxa aad loo hadal hayay oo ay aad u buunbuuninayeen kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye fiidiyowgan oo soo duubay waxay ahayd habeen dhibaato jirtay dhacday in nin taliye ciidan ahay ee police dhibaato geystay rabay inuu dalka dagaal ka kiciyo wuxuuna ahay dagaal ooge waan xasuustaa habeenkaas video ayaan ka soo duubay rag baa u sacabtumayay geesahan u lulaay waxyaabo badan u suubinay balse xaqiiqda yaan kaga dhicin waa arki doontaa hadallo been iyo warxumo tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka wuxuu dhahay hadallo iyo waxyaabo badan ee lagu dhibaateenayo dalka Soomaaliya waa sax waa xaqiiq waa wax jira waay rag baa waxay rabeen inay maanta dhibaato u keenaan dalkii Soomaaliya la barbar dhigayo nin raba in dalka dib u celiyo ee nin raba in gobolka iyo dalka uu ka soo jeedo iyo dalkiisa iyo dadkiisa raba inuu badbaadiyo hor socod u yeelo raba inay la barbar dhigaan nin raba dalka inuu dib u celiyo bal yaana kaaga hor dhicin aan ku dhameystiro
waxaan u caddaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba hala hekaatee wuxuu u hadlayaa waa dalkiisa dadkiisa ayuu wuxuu ku sheegayaa oo dejinayaa oo leeyahay dhibaato ma jirto cilad ma jirto ayuu leeyahay laakiin nin baa wuxuu tumanayaa oo u sacba tumanaya inuu dadkii dhibaateeyo asagana wuu ka celinaya wuxuu leeyahay joog inaad yar saas ha yeelin balse ninka dadkiisu la hadlayaa bal arag laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortagi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda okay cali yar cali waa ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir waay wuxuu u yahay oo amnigu u sugaya waa shacabkiisa waay ma aha shisheeye ma aha qof kaleeto ma aha in oo nin shisheeye inuu amnigi sugayo wuxuu amnigi sugaya waa anaka waa dhalinyarta waa shacabkii waa hooyooyinkii waa aabooyinkii waa caruurtii yararka ahaa ayuu daafacaya ninna wuxuu rabiyaa inuu dadkiisa dhibaateeyo ku soco xaqiiq wallahi ana nabi ku sheegin ninkan waa nin kaliya wallahi kuma dooran qabiilku oo yahay waxaan ku doortay aan ku jeclaa waxa waay dhiiga oo leeyahay wallahi waan garab istaagaya waan u hiilinayna wallahi waa hormuudka dhalinyarta maanta jirta waay wuxuu horseedayaa hormuud u yahay dhalinta maanta joogta ayuu hormuud u yahay oo aniga aan kamid ah maanta wallahi waa ku dhiiranahay hor socodkiisana wallahi waxay noo tahay waxa la yiri mantaqana ratiga weyn ratiga yar sanqaad macnaha ratiga weyn sanqaadkiisa ayuu yeeshtaa waa sanqaadkeena waa inaan ku daysana sida uu suubiyan wanaagiisa asagana maanta wuxuu noo tusaaleynayaa in wanaaga uu suubina inaan suubino ayuu noo tusayaa maanta muqdisho waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhiigooda laga dhax abuuro fursad siyaasadeed haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda aad iyo aad wallahi xaqiiq ninkaas ayaa la rabaa nin kale in loo barbardhigo ninka aragtaan gadaasheeda ka muuqdo ayaa la rabaa in la barbardhigo inuu yahay xildhibaan u tartamayo kursigii saxda bal asaga ay tusiyo waa nin geel gudoomo ilan ninka maadaama uu ku mashquulsan yahay inuu geel gudoomo nina uu ku mashquulsan yahay amniga dadkiisa inuu sugo labadaas ay kaliya okay isla fiidiyogan la soo duubay oo soo duubay Cali Yar Cali oo soo dhigay ka hadlay amniga waxa sidoo kale jira habeenkaas fiidiyo oo soo dhigay asagana oo ka hadlay qabiil ama hasalaad bal aragna waxaan rabnaa inaan halkaan ugu sheegno farmaajo fahad iyo biixi wixii dhib deegaankan soo gaara ama dadkan soo gaara mas'uuliyaddeeda idinkaa qaaday waan idinkula xisaabtamaynaa la idinkagana hari maayo insha allah ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan degan ee General Saadaq ka dhashay ee annagu xildhibaanada aanu nahay waxaan leenahay walaalayaal oo diyaar garooba haddii lagu soo weeraro oo naftaada la soo weeraro oo maalkaaga la soo weeraro oo sharaftaada la soo weeraro waajib diini waa inaad isdifaacdo hal iska difaacada wisi soo bahaystay oo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur wuxuu u naxay miduna aysan jirin gacan birahan iskaga qabanayna insha Allah hadii Allah aad iyo aad ma santi waa nin u halay qabiil waa nin qabiil uu sacabtumay waa nin qabiil lahay kaca hal iska celiyo qabiil ayuu u sacabtumaya nin qabiil ayuu u hilinaya wajigiisa ay ka muuqata dhiidka daabal arka maalkaaga la soo weeraro oo sharaftaada la soo weeraro si no le ayuda a la fábrica el camión le está saas waa ninkaas bal ayni tuso oo video geelka gudoomay bal aragna waa idinka gudoonay deeqdan geela iyo raashinka isku jira muxuu gudoomay waa deeq geela la siinayo ciidan raba dalkiisa inay burburiyaan ayuu maanta geel u keenay nina dalkiisa iyo dadkiisa ayuu daafacay ninkaas ayay rabaa inay la barbardhigaan bal ninka ka arag nin raba dalkiisa inuu burburiyo nin raba in dadkiisa uu ku kiciyo dagaal oo muxuu geel ugu doomaa mantaqana inuu shacabka barakiciyo oo kaliya wax kale ma ahan
aragna ku soco ka kaleeto video kale ku soo saara arag wuxuu ku hadla arag waa ka gaddoonnay aad iyo aad aan runtii ugu mahad celinaynaa saan waay dadkii kale ku horreeyay asaga dhan guddoon waay wuxuu ku soo aruray guddoon ayuu ku soo aruray sheekada marka maxay ku soo dhamaanaysaa xaaladda tan